السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي نبينا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. walaalahaygiyow maanta waxay tawbigeena ama mowduuceena uu ku saabsan yahay inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa isku baraarujinno, inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala maaragtay ka taqida ilaahay ka cabsanayna inaan isu baraarujinno, inaan ilaahay markasta soo xasuusanno. waa laga marmaan qofka insaanka ee nafta ku jirto markasta inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa la isku baraarujiyo. naftaada hadday ay nooshahay oo adduunkan ay joogto waqti kasta iyo saacad kasta waa in lagu xasuusiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa iyo baraarujintiisa. walaalahaygiyow walaalkayow ilaahay subxaanahu wa tacaala neeftan aan neefsanayso ku siiyo bilaasha, araggan aad wax ku arkayso ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey, maqal aad wax maqlayso ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walaqad karamnaa bani aadama. ilaahay subxaanahu wa tacaala ibni aadanka aad iyo aad buu u karaameeyey, aad iyo aad buu u sharfay. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kaa sharfay waxa noolaha kale oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nooleeyey ayuu kaa sharfay. aqli wax lagu gartuu ku siiyey, maqal wax lagu dhagaystuu ku siiyey, af wax lagu hadluu ku siiyey. waxaasoo dhan nimcada ilaahay subxaanahu wa tacaala bay u sugnaatay. ilaahay subxaanahu wa tacaala haasoo maahan inaad adigana garato siduu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuu karaameeyey, uu kuu siiyey fadaa'il gooni ah iyo sharaf gooni ah uu kuu siiyey. sodina ilaahay subxaanahu wa tacaala asagana u tasbiixsato ood u shukriso ood ku xamdiso maahan. yaa ibni aadam, madax adayg baan madax adagnahay, madax adayga aan iska dayno. wallaahi ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ku jecel yahay, markastana wuxuu kuu furay inaad waqti kasta ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo laabato. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allaahi towbatan nasuuxan. imsaanow, bili aadanow, u soo laabo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u soo laabo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha dib ugu soo noqo. dembi kastood gasho ha isdhihin lagaama aqbalaya, ha isdhihin. dembi kastood gasho ha isdhihin ma toobad keeni karta, ha isdhihin. intaad nooshahay waad toobad keeni kartaa. ina allaha yakfiru dunuuba jamiica innahu huwa algafuur araxiim buu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay. dunuub kasto isku soo duduub ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka dhaafo. ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka maaragtay dunuubta dhaafo. waa kugu farxaya haddaad u soo noqoto. mulxidiin iyo munaafiqiin iyo mushrikiin waad og tahay maalinka yowmalqiyaama inay shallaynayaan, oy qoomamaynayaan, oy leeyihiin rabbi irjic lii lacallii camalan saalixan. ilaahu subxaanahu wa tacaala dib noo celi, wixii camalo wanaagsanaa baan soo qaadanaynaa bay leeyihiin. kuwaas waa mujrimiintii iyo mushrikiintii iyo munaafiqiintii
laakiin adiga ilaahay subxaanahu wa tacaala islaam buu ku siiyey nimca iijaad wa nimcatul islaam islaamnimo ilaahay uu kugu galladaystay nimco weyn ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey ka faa'iidayso intay naftu kugu jirto ka faa'iidayso ilaahay subxaanahu wa tacaala maaragtay u noqo waqti kasta iyo saacad kasta hadhihin dembi kastood gasho ilaahay kaama aqbalaya waa kaa aqbalaya ilaahay subxaanahu wa tacaala annagoo og inay maaragtay dadka munaafiqiinta iyo mushrikiinta iyo mulxidiinta iyo gaalo ayna aakhira waxba ku lahayn oo leeyihiin yaa maaliku liyaqda calayna rabbuk maaligow nagala hadal ilaahay subxaanahu wa tacaala nafta naga qaada ay leeyihiin oo maaragtay maxay ku tabinayaan cadaabta meesha taala cadaab aad iyo aad u xanuun badan 40 sano kadib wuxuu leeyahay qaala innii maakithuun waad ku waaraysaan buu leeyahay walaalkayga islaamka ahayow walaashaydiyey walaalkaygiyow hadda intay naf kugu jirto ayay toobadda kuu furan tahay madaxadayga aan iska dayno ilaahay subxaanahu wa tacaala markasta aan isxasuusino ilaahay subxaanahu wa tacaala markasta aan isxasuusino ilaahay subxaanahu wa tacaala baa qadarid ku siiyo ku sharfay nabi maxamed calayhi salaatu wassalaam asagoo la hadlaya saxaabigiisa abaadar alqithaari oo adduunyadan iyo shahawaadkeeda iyo qafligeeda malayacnigeeda kala hadlaya wuxuu leeyahay yaa abaadar gajadid safiinata fa ina baxra camiid wa aktir zaata fa ina safara tawiil yaa abaadar buu leeyahay abaadarow gajadid safiinatan fa ina baxra camiid doonida jidiidso baddu way dhul dheertay haddii kale hina way ku laqiye wa aktir zaada sahaydana ziyaadso fa ina safara tawiil safarkana waa dheeryahay wa khafiifi alcamal camalkana yaree buu yidhi wa khafiifi alcamal camalkana iska yaree kaad u camal falaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kuu jeedaaye man araada an yandura ilaa ciisa bnu lmaryam falyandur abaadir alqithaari buu leeyahay nabi maxamed sal allahu alayhi wasallam haddaad aragtaan nabi ciise inaad aragtaan abaadar alqithaari arka buu leeyahay zahdigiisii ziyidkiisii macnaa adduunyada sidoo ugu ziyaaday ilaahay subxaanahu wa tacaala 4 shay buu kaaga digay uu ku leeyahay iska ilaalin cadow bay kugu yihiin naftaada cadow bay kugu tahay maalka cadow buu kugu yahay adduunyada cadow bay kugu tahay shahawaadkaadana cadow buu kugu yahay 4 haddaad iska ilaaliso waad liibaanaysaa adduunya aakhira inna shaydaana lakum caduwan fattaqiduhu caduwan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegay shaydaan inuu cadow nagu yahay afara'ayta man ittakhada ilaahu hawaa hawadan aad aragta waa cadow falaa taqurrannakum alxayaatu addunya ilaa mataacu lquruur adduunyadan aad aragtadana waa cadowgaada waayo alna nafsaha alnaaratun bisuu naftaadana waa cadowga weeyaan walaashayey walaalkayow waqti kasta iyo saacad walbaba ilaahay subxaanahu wa tacaala hagay ku uumay xasuusnow ilaahayga subxaanahu wa tacaala ha ku qadaray ee ku karaameeyey ku sharfay xasuusnow naftaydii iyo naftiinaba waxaan igala dardaarmayaa cadaabtii alla aad bay u kulushahay ilaahay subxaanahu wa tacaala baan ka magan galay naar allah naga koriye adduunyaha israacinin adduun waxba ma aha adduun waa gaaban yahay adduun aad iyo aad buu u gaaban yahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay addunyaa daaru man laa daaru lahu adduun waxay daar u tahay ninkaanan aakhira daar ku lahayn wamaalu man laa maalu lahu maalna wuxuu u yahay maal ninkaanan aakhira maal ku lahayn lahaa yajmacu man laa aqli lahu adduunyadan waxaa aruurista buu yidhi ninkaanan aqliga lahayn waayo adduunya waxay ta malahan waa lagu kadsoobaa adduunya way ku waalaysaa hadha arkin waxaan dhalaalkan iyo waxaan arkin waad dhimanaysaa dariskaada maalin walba la qaadaa geerida waad maqashaa haluma jir 40 jir 20 jir 30 jir intaa jirtaba kullu nafsin daa'iqatul mawt waxaa hubaal ah inay geeri aad dhamin doonto oonad dhiman doontaa hubaal ah marka walaalkayow walaashayey
naftayda waxaan iga baraarujinayaa cadaabti Allah inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu naga koriyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha noo dambi dhaafo cadaabta aad iyo aad bay u kulushahay waqti kasta saacad walba xasuusnow inay geerida ay meel ku jirin oo maaragtay ilbiriqsi lagu qaban karo oo maaragtay waqti meel walba aad maaragtay ilbiriqsi aad ku dhimanayso midaas xasuusnow يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إلهي سبحانه وتعالى وحوليه ورئيهلكينا يددكينا بالنار تكلا بحصدا نار تآد بيكل الشهي وقودها الناس والحجارة نار تاسو قوضته من آذن يو الحجارة رقح بيقوضته بل أرق والالكيو نار تاس كما بحكرنا من آذن بيقوضته بني آذن أي عنتا يرقح بيعنتا إلهي سبحانه وتعالى عنده بتكينه إلهي عنصر نقنه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح وقت كستا أي ساعة كستا ويفرنتها توبة إلهي سبحانه وتعالى قعمه كوها سنية كوي مالك الدنبابي هبينك إيسو لابتو ليه كوي هبينك الدنبابنا مالك إيسو لابتو ليه إلهي سبحانه وتعالى وكجعليه توبة وكا أقبليه وكفر حسينها إن أصول الله بتمقت والباء إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ذنوب كسول صد الضوابع إلهي سبحانه وتعالى وكجعليه وأنا كسول وأنا حكولي صلى الله ولا الكيو نفتي نبأ وحائن قدر دار ميا عذابتي الله إنه إلهي إنه كريو جنة وشيء آدو قيمة بدن جنة وشيء آدو قيمة بدن هلو شقيستو شقي أباهنتهاي وولالكي شاكر براروجين نفتينا آد بني جعلها أنا آد بدين جعلها الله أنه كوري عذاب نفتي نبوحان إلهي كبرينا جنة فردوس إلهي أنه كل ميو